Assalaamu calaykum saaxiibayaal fiidnimo wanaagsan. Ku soo dhawaada wararkeena maanta. Fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar si aad ula socoto wararkan xiga. Iyadoo aan ku jirno usbuucii xorriyadda 26 Juun, maalintii ay midoobeen gobollada waqooyi iyo koonfur, hoosna loo dhigay calankii gumaystaha Ingiriiska, korna loo qaaday calankii buluugga iyo caddaanka ee noqdayna astaantii ummaddii Soomaali weyn. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa durbaba qaatay taladii uu u soo jeediyey ergeyga gaarka ee abaaraha u qaabilsan madaxweynaha Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ahayd in la yareeyo kharashka loogu dabaaldegayo sanadkan maalmaha xorriyadda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amar uu soo saaray ku bixiyey wixii rash ah iyo bululeyr laga ridayay saldhigyada magaalada Muqdisho iyo xarumaha dowladda oo ku baxaysay lacag gaaraysa $60,000 in la baajiyo loona wareejiyo abaaraha. Hadalkan ay ku jirto Soomaalinimada iyo u danqashada dadka taagta daran ee ka awood badisay abaaruhu ayaa madaxweynaha lagu ammaanay tallaabadan degdega ah uu qaaday. Durbaba siyaasiyiin hore iyo shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa arrintan bogaadiyey ugana mahadceliyey madaxweynaha tallaabada geesinimada leh uu qaatay. Madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale soo hambaliyeeyay maalinta xornimada Soomaaliyeed ee israaceen gobollada waqooyi iyo koonfur ee 26 Juun. Madaxweyne Farmaajo ayaa ammaan kula duldhacay dadka reer waqooyiga. Sidoo kale madaxweynaha ayaa dowladdan cusub ka codsaday inay wadahadalkii Somaliland iyo Soomaaliya dib uga sii wado meeshuu uga tegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ku bogaadiyey shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Somaliland inay dib ugu soo laabtaan walaalahooda koonfureed. Ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaaraha cusub inuu mas'uuliyad weyn iska saaro arrinta Somaliland oo ah arrin aad u soo jiidatay muddo dheer. Dhageystayaal, waa naga intaas wararkii aan igu soo gudbinaynay xogta maalmaha xorriyadda ummadda Soomaaliyeed ee 26 Juun. Fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar si aad ula socoto wararkan xiga. Mahadsanidin.